waxay dhahdaan saltanadiisi waxa hunguri kaga jiray inuu dunidoo dhan qabsado sidii ay waqtigii dambe duwalka reer Yurubka ku fakarayeen oo kale ayuu isagu ahaa marka la eego Yurubta boqorada Yurub waxay ahaayeen dad ka dambeeya boqortooyadiisii oo waxa la yiraahdaa Yurub al-Hadith ama Modern Europe iyo xuduudahan ay leedahay waxa ka qayb qaatay sameynteedii bay yiraahdaan wixii isagu geystay dagaallo 13 uu qaaday dhan walba wuu qaaday dhankan wuu soo socday ilaa iyo dhulkan xabashidu qabsaday Jabuuti qabsaday Eritrea qabsaday Soomaaliya qabtay Yemen buu qabtay Cadan iyo Ticis iyo qaybteedan hoose wuxuu qabsaday maxaa la yiraahdaa Sawaakin waa wadankan Suudaan la yiraahdaa qayb kamid ah wuxuu xoreeyay oo Boortaqiiska ka xoreeyay منطقة loo yaqaan al-Bahr al-Ahmar suqatar uu qabsaday intaasoo dhanba Boortaqiis buu ka kiciyay ahdigiisu waa waqtigii xaqan kalena Axmed Guray uu ka dagaalamayay oo ay isku ahdi bay ahaayeen Axmed Guray iyo maxay iyo Sulaymaan al-Qaanuuni waa isku waqti wuxuu gaaray xad uu u kaco dhanka bari dabeetana dhanka bari wuxuu qabtay Cumaan buu qabtay dabeetana kanaalkaasi laga soo galo Bahar al-Arabka ee Iiraantiya Carabta u dhaxaysa buu qabtay jasiiradda meesha ku taala buu qabsaday al-Ihsaa buu qabtay kadibna waxa soo hoos galay Qatar Bahrain Kuwait Sacuudiga waxa soo dhanba hoostiisa yimi dawlad Safawiya wuu jabiyay Baghdad buu dib u qabsaday Tabriz buu qabsaday laba magaalo iyana kuwa gobolada sare Georgia iyo Armenia qayb ka mid uu ka qabtay caalamul islaami oo dhan intiisii ugu badnayd India muslimiinta joogtay markay Boortaqiiska ka cabanayeen isaga ay u cidirteen dabeetana ustul bahriya buu Masar ka amray inuu ka baxo oo Ahmedabad meesha la yiraahdo intuu tago inuu u heeliyo markuu Boortaqiisku qabsaday wadankan loo yaqaano Indonesia waxay u cidirteen isaga dabeetana cid buu u diray in laga dhiciyo Boortaqiiska meesha markay qabsadeen Isbaanishku Algeria iyo xeebaha waqooyi oo dhan cid buu soo diray wuxuu sameeyay ninkii loo yaqaanay Khayruddin Barbaroos waa gadhcase nin baa jiray badda Mediterranean-ka la yiraahdo ka talin jiray oo gadhcase la yiraahdo oo muslima oo ah hogaamiyihii usqulka bahriga ah ay leedahay dawladda Uthmaaniya qaraasinada badjiifka dhulkan badda dadka ku dhaca badna burcadbadeed tira badnayd caalamku burcadbadeed waaga waxay ahayd waxa ugu caansan ee la sameeyo oo dawladaha Yurub cidii doon yar samaysan kartaa intay doon samaysato ayuunba badaha la tagi jiro dadka la boobi jiray dabeetana si badda loo nabad galiyo Khayruddin Barbaroos baa loo soo diray ilaa iyo Algeria qabtay Libya qabsaday Tunisia qayba ugu badan buu qabtay Algeria qabtay Isbaanishkii buu meesha ka eriyay waxa dhacday markaa way iska hor imanayaan dawladihii markaa dunida ugu xoog badnaa مثلا يوروب marka waxa u xoog badan آل هابسبرغ boqortooyinkii Habsburg waa maqasheen baan u maqlaynaya waa boqortooyo cariiqa xeel dheer boqortooyinkii ugu dheeraa ee Yurub ka taliya kamida asalkooduna waa Namsaawiyiin Namsa wadankan Usteria la yiraahday deganaan jireen waxa jira nin kamid ah boqortooyada oo Sulaymaan markuu 1520 meesha qabsanayay bil kadib mise bil ka hor meelahaasi ayaa isna madax laga dhigay waa ninka loo yaqaano Charles ama Carlos ama Carl ama Charles Khan afafka reer Yurub qolaba si u qortaa waa Charles the Fifth wuxuu dhaxlay dhowr boqortooyo
kow nin aala haasbaarka weeyaana boqortooyadiina mas-uuleeyey islaan u hooyo ay yidhaahdaan way waalatay majnuunatu qashtaala la yidhaahdana habartii muslimiinta ka soo saartay andalus ayaa dhashay boqortooyadii hooyadiina wuu dhaxlay oo markaa Spain oo boqortooyinka ugu waaweyn ahaa buu boqor u noqday wuxuu kaloo dhaxlay awowgii xagga aabbaha buu ka dhaxlay boqortooyadii Germany-na wuu dhaxlay wuxuu kaloo farsamo ku soo helay inuu helo boqortooyadii la odhan jiray al-Imbaraatoriya al-Muqaddasa al-Imbaraatoriya al-Muqaddasa Yurub boobku nin quru u ogolaa inuu imbaraator magacaa sheegto dabeetana waa ninka boobkuna taageerayo talyaanigana caasimadda ka talinaya odayga Macmillan odayga Jarmalka haysan jiray awowgii ahaan jiray Francisca ninkii madaxweynaha ka ahaa François la odhan jiray bay ku loolameen meeshuu qabsaday cala kulli xaal waa nin markaa 4-5 wadan boqortooyooyinkood wada hoos yimaadaan Charles-kii shanaad baa la yidhaahdaa Francisca boqortooyada iyo boqortooyadaasaa loo lamayay kadibna waxaa dhacay in dagaal la dhex mareen dagaaladaasi waxay keeneen marka horeba dowladda tan al-Habsburga iyo dowladda Uthmaniya waa labada boqortooyo ee loolanka ku jiray laakiin markay tani timi waxa soo baxay dowladda Faransiiska iyo inay col noqdeen nimankii la odhan jiray al-Habsburgaasi oo uu hogaaminayay ninkaasi Carlos la yidhaahdaa Carlos-kii shanaad dagaal baa dhex maray dabeetana waa la qabtay markii la qabtayna waa la xidhay dagaalkii baa lagu qabtay François-gii koowaad markii la qabtayna waxaa lagu xidhay meesha loo yaqaano Madrid ayaa la keenay Madrid markii la keenay ayuu wuxuu u dirtay waa maxbuus boqorkii Francis wuxuu u diranayaa inuu badbaadiyo dowladda Uthmaniya oo wuxuu leeyahay nin baa si xun ii galay waa la xidhay adigaana boqorkii dunida ka talin jiray xabsiga ayaa laga soo daayay hooyadii oo naa'ibad u ahayd oo Francisca markaa xukumaysa waraaq soo dirtay islaanta waraaqdeedii waa tan waxay leedahay muddan sugayay inankayga xidhan anigoo inuu rajaynaya inuu bini aadamnimo eega shaaralkaan laakiin may dhicin rajadayadiina way gaabatay sidaa awgeed waxaan ka codsanaynaa bay leeyahay fa innii altamis min jalaalatikum wa cadamatikum bisifa khaasa bian tatafadaluu biidhaari fakhaamatikum bikhalaasi ibni wa inqaadih min qabdati dulmi caduwina وذلك بعظمتكم وجلالتكم المؤيدة والمصدق عليها من العالم waxay leedahay boqorka Faransiis aduun baa soo dayn kara hada boqorkii dunida weynidaada iyo jalaaladaada waxaanu ka codsanaynaa boqorkaygii baa maxbuus inaad soo dayso boqorkii Faransiiska xidhnaa baa isna warqad diraya wuxuu leeyahay ila hadrati haakim wa sultaan albilad wal mamalik min anhaa' alaalam alma'mura waxaan waraaqda u qorayaa buu leeyahay boqorka iyo taliyaha ka taliya dunida inta la degan yahay baa ninka madaxda u ah as-sultaan al-mu'azzam wal-khaqan al-mufakham alladhi huwa malaad jami' al-madhlumin buu leeyahay boqorka ah dunida inta dulmani ninka ay xaqiisa u cararta buu leeyahay a'radu ala hadratikum ma fi al-qalb waxa naftayda ku jiraan ku soo bandhigaya oo waa maxay Ferdinand marka Ferdinand waa shaaralka walaalkii oo Majar Hungary ka talinaya Ferdinand oo malik Majara marka weerarteen shaaralkaana annagu naga argoostay buu leeyahay annaguna weeraray boqorka marka idinku weerarteen bukan annaga naga argoostay dabeetana maxbuus baanahay fadligaaga iyo waxtarkaagu baan sugaa buu leeyahay qiyaas
France oo Catholic hogaamiso boqortooyinkii waaweyn ka mid ah oo boqorkeeda maxbuuska waa boqorka kale oo waraaq u diraya Istanbul oo safiir dhan la dirayo oo waraaqda loo dhiibayo oo hooyadiina waraaq soo qorayso oo safiirintu la lugeeyo loo geynayo Istanbul si uu boqorada u sii daayo فرانسيسكا سفير كي كسعدي مركو ينمو وحو يري الهجوم البري والبحري ضد كارل الخامس سينقذ الملك الأسير وإلا فإن كارل الخامس ستزداد قوته ويشتد صاعده بالمعاهدة التي سيععدها معه الملكان حليه هي الملكان هدي أنا بقر كاوير كو قادم بولي بدء يبري بله هدات كو قاده boqorkayagii waa la soo daynayaa haddii kale waxa dhacaysa bay leeyihiin boqorkayaga uu xabsiistay inuu jabo oo mucaahado iskala galo oo Yurub oo dhamiisu ka raacdo ee dantu aday kugu jirta ay ka gaadhuulay muxuu ugu jawaabay Sulaymaan al-Qaanuuni wuxuu ku jawaabay kow waraaqdu waxay ku qorantahay marka hore cinwaanka madaxtinimo uu sheeganayo ana sultaan as-salaatiin kabiir al-muluk أنا الذي أتوجه الملوك ذل الله في الأرض أنا سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود والروملي والأناضول وقارمان والروم ودو القادر وديار بكر وكردستان وأذربيجان ودمشق وحلب ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب واليمن وحشيغان يا أنت وحكومة دونيده مركو الشيكتي كدب أيوح قري من السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان إلى فرانسيس ملك ولاية فرنسا ملك ولاية نك فرانسيس أردن حكومة وحلقة دقيقة يا محي ملك ولاية فرنسا أبو لي هو صقري وأنا سوق على يبوي وركي فرنجباي ergeygaad soo dirtay Faranjabay la yiraahdo risaaladii qorayd iyo tii afkaba ahayd wuu noo keenay buu leeyahay waana naloo sheegay cadawgiinu sidoo ku galay iyo inaad muxaasir tahay waanan fahmay inaad u baahan tahay kaalmadayda iyo inaan ku gargaaro waxa soo dhan hortaydu ka sheegay buu yiri waanan fahmay warkaagi ee adiga mid baan ku sheegayaa buu yiri wax weyn ma aha buu yiri in boqorada la xidhaaye horta murugada iyo niyad jabka iska ilaali buu leeyahay ma wallay xidhay wax laga calaacala ma aha buu leeyo ninka calaacale fala tahzan wala tahtam fa inna aaba'i al-kiram buu markaa leeyahay wa ajdadi al-'idham nawwara Allahu maraqidahum lam yakunu khalina min al-harb لأجل فتح البلاد ونحن أيضا سالكون على طريقهم وفي كل وقت نفتح البلاد والقلاع الصعبة الحصينة وخيولنا ليلا ونهارا مسروجة وسيوفنا مسلولة فالحق سبحانه وتعالى ييسر الخير بإرادته ومشيئته وأما الأحوال والأخبار الأخرى فسيبلغكم بها رسولكم وكويلي هي waxaan kuu sheegayaa aabayaashaydii sharafta lahaa iyo awowiyadaydii waaweyna ilaahay xabaalahooda ha nuuriye dunida waa furanayeen anna waxaan kuu sheegayaa buu leeyahay sidii faraska iyagu inuu kooraysan yahay seeftayaduna u baxsan tahay ilaaha weyn baana khayrka fudaydiya buu yidhi wixii ware hoosana waxa kuu sheegi doona buu yidhi rasuulkaaga wixii ware hoosana ergeygaad soo diratay ayaa kuu sheegi doona buu leeyahay yacni waxay tilmaamaysaa salaatiinta yurub ayaa ahaa kuwa u geeya maxaa la yidhaahdaa kuwa u geeya jisyada kuwa u geeya markii maalan madaxnimada la saaraya isaga markuu boqortooyada qabsanayay waxay yimi boqorradii dunida qaybo ka mid ah waayo dee sultaankii dunida ugu weynaabaa la caleema saaraya waxaa yimi ninkii madaxda u ahaa meesha la yidhaahdo ragusa waa magaalo ku taalla Sicily Scalia meeshan la yidhaahdo
waxa yimi kii raasheenka waxa yimi kii bunduqiya salaatiin badan baa yimi waxay u yimaadeen litahni'ah boqorkan weyne dee ninka dunida ka taliya ee madaxnimada loo inay tahniye u sameeyaan iyo inay mucaahadaad heshiisyo talab heshiisyaday soo qorteen waa maxay raaguusa qolada la yidhahdaa way timo waxay yidhaahdeen waxoogaa hubana waanu u baahanay dakhiira inaad naga iibiso cashuuraha qaarna naga dhaaf bay leeyihin markaanu dekedahaaga nimaadno iyaga wuxuu ku yidhi hubka laydinka iibin maayo laakiin waa laydin siinayaa cashuur dhaafka waa laydin siinayaa soo imka maraykanka inta la tago kontraagyana lama soo saxeexdo waxoogaa hubana naga iibin lama yidhaahdo oo marna ma yidhaahda idinka iibin maayo marna waa idinka iibinayaa sidii oo kale weeyaan waxay leeyahay cashuuraha qaarna naga dhaaf hubna naga iibi wuxuu u ogolaaday qolada inuu cashuuraha qayb ka dhaafo laakiin hub laydinka iibin maayo waxaa yimi safiirkii raashiya isagu wuxuu leeyahay nimankan qiramka la yidhaahdaanu khaatiga taaganay qiramka waa tataarkan waa meeshaan iminka uu qabsaday ninkani ayaanu khaatiga taaganay kuwaana nagala hadal mucaahadana nala gal heshiisna nala gal wuxuu yidhi wax heshiis aan idinla gelayaa ma jiro laakiin kuwa maalmadaaya waan odhanayaa kuwaas inay maalmo idin daayaan waa ogolaanayaa laakiin mucaahada ma jirta iska taga idinkuna waxaa yimi albunduqiya bunduqiyadu waa venisia magaaladan la yidhaahdo bunduqiya qoladii haysatay waxay dalbanayaan iyana mucaahadaadkii hore in loo cusboonaysiiyo marka hore way ammaaneen boqorka aad baanu ugu qanacsannay bay leeyihin boqortaydaad iyo waxaad waddo oo dhan waxaanu rabnaa heshiisyadoodii iyaga dan kalu lahaa waayo markaa wuxuu diyaarinayay duulimaad aad u ballaadhan oo yurub ku qaado aluhaasbergeedii iyo majariyiintu uu duulimaad ku waday saa daraaddeed wuxuu rabay bunduqiyada tan inuu ka saaro xilfi wadaagga qolada inaanay gelin iyaga mucaahadu la galay mucaahadada waraaqdii inta la qaadaa waxaa laga akhriyey majlisu shuyuukh ay leedahay meeshaasi 1522 abril 8 soddon bandi ama soddon qodob bay mucaahadadu ka koobantay ka koowaad tijaarada in xorriyad laga dhigo la ogolaado nabaddana la sugo ka labaad safiir inaad noo ogolaato inaanu istanbul keensanno oo weliba 3 sannadoodba maraanu kaa beddelno safiirku safiir daa'ima maaha every 3 years in la beddelo wax allaaliya wixii kaa soo baxsada inaanu soo celinno dadka badda dhibtu ku haleesho inaan wax dhiba loo geysanin wixii dhinta ama mutahamiina soo yaaca in la isu celiyo nimanka banaadiqadii ama dawladdiinnaasi waddanka istanbul gudaheeda inaydan waddanka turkiga gudihiisa inaydan socon karin ilaa warqad dhaqdhaqaaq safiirku idin siiya mooyaane waddanka gudihiisa warqadda dhaqdhaqaaqa ee safiirka ayuunbaa ka qaadan kartaan waxay codsadeen north africa intaan ay muslimiintu xukunto in loo ogolaado inay la baac mushtarayn karaan waxay aqbaleen wixii doone tijaare ay leeyihiin istanbul inta la keena in la baadho marka hore waxay sido la ogaado waxa ay sido waxay aqbaleen 5,000 ilaa 10,000 oo dahaba dawqiya dahabiya ah oo jizya ah inay sanad kasta ka bixiyaan labada jasiiradood ee qubrus iyo zantana dawladda cuthmaaniya loo keeno mucaahadad soddon bandi ka kooban buu qoladan la aqbalay waayo bay yidhaheen boqorku wuxuu u baahnaa dagaalada uu qaadaya inaanay qoladani qayb ka noqonin oo ka soo qayb gelin waxaan leenahay markaa boqortooyadu ninkani xukumayay wuxuu ahaa boqorka aynu odhan karno dunida ninkii ugu boqortooyo ballaadhaaba wakhtigaasi ahaa oo boqortooyooyinkii wakhtigiisa la noolaa waxaa ka mid ah imberatorka karol alkhamis la yidhaahdo oo arshadoq waa boqortooyada ka talisan namsa ahaa imberatoriya almuqadasana isagu dhaxlay iyo Spain imberatoriyadeedii waxaa ka mid ahaa walaalkii waxaa ka mid ahaa boqortooyooyinkii faransiiska
Francois-gii koowaad iyo Henry-gii labaad waxaa ka mid ahaa boqortooyadii Ingiriiska Henry-gii sideedaad qaysarkii Ruumaan qaysarkii Russia caalam islaami marka la eego boqortooyinka yaryar jira waa Shah Tahmasib Shah Tahmasibku Ismaaciil Safawigii oo odaygii hore Salim uu jabiyay inankiisii weeyaan iyo Hamayun al-Baburi waa ninkii xukumayay markaa Indiya dawlad al-Mughaliya ka soo hadhay baaburku Soomaydan maqalimka masaajid had iyo goor la isku hayo ay dumiyaan oo Indiya ku yaalo ay leeyihiin macbad ha loo bedelo Hindidu ay ku doodayso waa Hamayun kana aabihii ninka dhisay baaburiga la sheegaya waa ka aabihii Hamayun al-Baburi waxa ka mid ah Akbar Shahi oo ibnu Hamayun kaasi markuu dhintay waxa soo boqorro oo dunida ka jiray marka la barbar dhigo Suleymaan al-Qanuni waxay ahayn dawladda yaryar ee la ilaaliyo mu'arrikhi qarnigii 16aad ee muslimka ahaa sheekhi la oran jiray Jalaal Zaad Mustafa Shalabi markuu Suleymaan al-Qanuni ka warramay wuxuu yiri innahu zubdatu al Uthman buu yiri dawladda Uthmaniya zubdadeedii muceedu ninkan buu ahaa buu yiri saddex shay baanu ku caan baxay buu yiri al-adala oo dadka uu cadaalad sameeyo iyo himaayatu shacbi wa sa'yu ala masalihihim shacabka ilaalintiisa iyo masaalixdooda guud inuu dhowro iyo sifatul fatih al-aalami inuu ahaa nin furasho badan waxay dhahan Suleymaan al-Qanuni wuxuu ahaa nin gabiyaaya oo gabayga ku fiican wuxuu ahaa nin luqada carbeed iyo luqada beershiya iyo luqada atraakta siba lahja tataariya iyo turkigiisiiba afarta luqaba nin si fiican u yaqaan buu ahaa bay yiraahdaan waa kuwa yidhaa gabayadiisa caanka ay sheegaan waxaa ka mid ah gabay uu leeyahay markay tarjameen wuxuu ka mid ah inna sijaadatan takfi suufiyayn ithnayn walakin al'aalam kulluhu la yakfi limalikayn buu yidhi hal sijaayada laba wadaadoo suufiya waa iskaga filantay buu yidhi laakiin dunidoo dhammi laba boqor kuma filla buu leeyahay gabay uu tirinayo yani caalam siyaasi hunguriga yaalla iyo caalam zuhdi inta deeqi karta buu tilmaamay ahadigiisii baa la qoray qaanuunkii ugu badnaayay wadanku ilaa iyo dawladda Uthmaniya ay dhacisay ay ku dhaqmayeen qaanuunkiisu wuxuu ka koobnaa baa la yiraahdaa fataawi ulama walidalik qisaska cajiibka ay ka sheegaan waxa ka mid ah markuu dhimanayay ayuu yiri sanduuqa halayla aaso sheekh al-islaam kii ahaa mufti dawla ayaa wuxuu yiri sanduuqa armay wax qiimo leh ku jiraan hal furo ilan in aday mujawharaad iyo wax wanaagsan ku jiraan in xabaal la galiyo ma aha sanduuqa aan ogaana buu yiri waxa ku jira hal furo meydkiisa iyo meesha yaala sanduuqii la furay sanduuqii waxa loogu tagay wixii uu sheekhul islaamku fatwo siiyay oo dhan oo qoraal abu ku sitaa ilaahay baan la hortagayaa buu yiri wixii aan dhigay in ay idu fatwooteen oo ay tahay waxay yiraahdaan marka qawaaniintu dhigay inta ugu badnayd waxay ahayd bay yiraahdaan qawaaniin ku saabsiisan waxa lagu tilmaamaa ninka kani inuu caan ku ahaa awqaafta iyo waxyaabaha khayriga wuxuu caan ku ahaa dhismayaasha caankee maanta loo daawasho tagay ku yaala waa ninkii dhisay مثلا مسجد سليمان القانوني ومقاشانين بدن مساجد ugu caansan ee marka la tago Istanbul la daawada isaga dhisay jaamacadii kulliyadkii la socday isaga dhisay مسجد السليم isaga dhammaystiray Baytul Quds dibu tarmiim ugu wada sameeyay Makka waxbuu ka dhisay Makiya Madiina wuxuu sameeyay khadamaat cusub uu sameeyay jawaamicda caamka jaamican weyn ee ku yaala maxaa la yiraahdaa Baghdad al-Imam al-A'zam jaamiciisa isaga dhisay Abdul Qadir Jailani jaamiciisa isaga dhisay waxa soo dhan markaan eegno inta aan idin sheegay waa umuman muqtatafaat kamida wixiisi laakiin taariikhdiisa kama waramin way taariikhdiisa dagaaladiisa qura hadan ka waramo
dee waa 13 dagaal oo cawaasimta dunida ugu caansan ku furtay belgrade isagaa furtay budapest isagaa furtay bucharest yani cawaasimta dunida maanta la yaqaano waa ninkii dagaalada ku furtay walidalik maynan ka warrabin taariikhdiisii laakiin waxaynu ka warrannay dawla alcuthmaaniya oo cahdigiisii maamulayay simaadka caamka ay lahayd waqtigeena wuu dhammaaday halkaasaynu ku joojin wallahu aclam billahi tawfiiq